الله الرحمن الرحيم دمان waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta dunida dacaladeeda ka joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Nadac Ismaan Xirsi Galow joogta kuna magac dheer Nada Galow joogta magaalada Burco ardayad gobolka Togdheer joogta ardayad jaamacadeed waliba waxaan halkan maanta tacsi tiiraan la uga diraya dalkayga maanta dhibaataysan iyo dadkayga dhibaataysan sababtoo ilaa xalay ilaa habeen hore waanu qeyroonayna waanu ooyeynaa laakiin dareenkayga maanan muujin inkastoo baraha bulshada iyo meel kastoo sawiro xun lagu soo daadiyay baanu ka ooyeynaa haddana dareen aanu cabirnay ma jirto waayo dalkayga maanta dad isku kalsoon ama iskaashata maaha waa dal meel walba qabiilna qasax leeyahay geedlan u kala baxay waa dad kala guuray waa dad qadiyad xumi kala laysay waa dad qabiil iyo qaran baabis qalbiyadoodii galay waxaan anagoo intaaba og hadaba maanta tacsi tiiraan loo diray dadkii 276 qof ahaa ee lagu gumaaday magaalada Muqdisho caasimada xamar ee Soomaaliya ee lagu dilay gardarrada iyo xaq darrada iyo waxaanay sameyn waa dad maatiya oo qanacsanaya oo hooyo aaba isku jira walaal iyo iyaal iyo xigaal bay isku jira aan waxba galabsan ayaa la iska dilay maxaa lagu dilay maanta dalkayga waxa uu soo gurmanaya nin magac ila wadaago islaamunilaa Soomaalidii midimooga midumu damqan midumu hadal maxay tahay sababtaas maxay tahay talo marka madaxweynaha Turkiga Ilaahay daayay madaxweynaha islaamka kale nagu qaalay runtii weeyaan markuu noo soo gurmanayo dalkayga u soo gurmanaya asagoo dhaqan la wadaagin oo aan af Soomaalina la wadaagin oo diinimo una la wadaaga maxay tahay diin buu nagu naxariistay bal kuwii isdhalay ilmaadarkii gacalkii xigaalka ahaa ee kala qabay ee isku dhaxay maxay isku gunixi waayeen talo maxay jawaabtaas tahay maxay su'aashaas tahay kaba soo gudbo waxa soo dhan maanta waxaan diray qof kasta hooyo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho joogta oo kuna nool dhibaatadii naga dhacday kaligood kuma dhicin ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta qalbigeeda way saameynaysaa dhibaatada ku dhacday ee carruurta dhimatay iyo waalidiinta dhimatay iyo waayeelka dhintay meesha lagu gumaadayba waxaan ku tacsiyeenaa inuu Ilaahay naxariista janno ka waraabiyo inna lillahi raaji'uun balna waxaan arkay imka video hadda la soo diray oo wiil ii soo diray videogani wuxuu wadaa waa oday waxa weeye 5 jir waa curiyaan labada dimood kuma yaalaan sagaal carruur ah buu leeyahay sidan halkan videoga ka dhageystaa isagoo warramaya sagaalka carruurka uu leeyahay wuxuu yiri laba ii lixaad qabay inta kalena aniga ila mid ahaayeen waxaan ku dhashay curyaamadaas bay ku dhasheen labada ii lagu qabay mid fonfor buu ka baxay mid jaamacadda Muqdisho jaamacadda Siman University College buu dhigan jiray Muqdisho ku taal wuxuu yiri labadaas way caawin jireen dukaan yar baan haystay dukaanka yaraan haysto markay ka soo baxaan mid walba jaamacadda ka yimaado mid isku ka yimaado iyaga isku kasoo bedel jiray shaqan jiray anigu ma shaqaynayo labada dimood bay kuma yaalaan iyaga ay shaqan jiray qarxi darha toolan ku waayay qarxi darha toolan ayaan ku waayay hooyadu waa curyaan asagii waa curyaan waxa kala todobada kalaan haysta waa curyaan anigu curyaan baan maxaan ku shaqaystaa mise maxaan wax ku tarsadaa waxba ilaadimo bay iguma yaalaan maxaan da wax ku tari karaa dawladeeda sharaf leh waxaan ka codsanayaa buu leeyahay inay ii gargaaraan horta gargaarka Ilaahay baa bixiya laakiin haddana waxaan ka codsanaynaa dawladeeda sharafta leh waliba madaxweynaha Soomaaliyeed madaxweynaha iyaga qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu u kaco shacabka Soomaaliyeed waliba si naxariis ku jirto ugu kaco ayaan ka codsanaynaa waayo maanta waan wada damqanahay maanta waan wada damqanay waanan wada ooynay runtii waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa in loo kaco oo ka Soomaaliya jooga iyo ka waqooyi jooga aanu kacno hadan dhalinyarnahay ba inta feefka ka helaya iyo ka halka dooraraya midahan noqdaan meelaan ku dirnaa hadii naloo soo sheegay ida xalay lacag waanu bixinaynay waanu ku diraynaa akoomada waliba noo soo sheegan haddana anagu dhalinyarnahay kuwa halka jooga wallahi waan isxilqaamayna dadka dhintay iyo hooyooyinka maanta iswaayana dhamaantood waxaan ka codsanaynaa inaanay qalbiga isdhaqaajin dadkani meel xun tegi maayaan laakiin kuwa dilaya ayaa ku aakhira beeray ku aakhira seegay waxaan codsanaynaa dhalinyarta reer Muqdisho aan isnaqaano bulshada iska naqaano in akoomo ama mooblo lacag lagu soo shubo oo dadkan lagu caawiyo dhiigan qofkii heli karayaana bixiyo qofkii aan heli karayna uu iska badaayo akoomada lacagta lagu daweyn lahaa loo soo sheego anaga bixinayna
bal maxaa lagu dilay waa ummad yar oo Soomaaliyeed waa hooyo waa caruur tolaya waxaan la yaabanahay ninka diinta ila wadaageen carabkii sidii ugu naxariistay iyo Soomaalida idin kale sida waa musantay ilaa xalay ilaahay hore war miidan jir naxal ahayn war miidan dad dhaqmaan ahayn war dhalinyaro waayeel boon sheegaya kuwa bari ku nool garow hadda noqotay boosos hadda noqotay cadaada hadda noqotay kismaayo hadda noqotay hala ka fadhiga hala ka kaco dadkeeni maanta uu dhamaanaya war Soomaaliyeed Jubbaland in xukumayso Puntland in xukumayso Somaliland in xukumayso waxaan inoo xukumay ma sheegaya maanta dad straad of calanka passaportkii waxaad seetaa in Soomaaliya meel walba Soomaaliya laga yaqaan Arab iyo galbo Soomaaliya ku yaqaan waxaan ka xunahay aan mar walba aan sheegayna tacsi tiirayna aan dirayna dadkii maanta halka ku gumaaday waxba yaan qalbiga la iska xumay baan isleena maanta anagu baroor Facebook kolba qof yar basti soo dhiga anagu taaguma hayne dad hadda doonaysan maanta Soomaaliyeed inaad wax qabsataan hadda doonaysaan hadda hala bilaabo akooma hala bilaabo dadkeena Soomaaliyeedna hadda aynu ugu deeqno dawooyin